xaggee ayay ku yaalaan saldhigyada waaweyn ee militariga Mareykanka ee ku yaala Bariga Dhexe? Maxaynu ka ognahay saldhigyada militari ee dowladda Mareykanku ay ku leedahay wadamada Khaliijka? Gobolka Khaliijka ee Bariga Dhexe waxaa loo arkaa gobol istiraatiiji ah adduunka oo dhan, maadaama uu isku xidhan u yahay qaaradaha Yurub, Afrika iyo Aasiya. Gobolka waxaa ku yaala 17 wadan oo ay ugu waaweyn yihiin ama ay ka mid yihiin dalalka Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Israa'iil, Suuriya, Iiraan, Turkiga iyo Yemen. Kadib qaraaraasii dhawaan ka bilowday dalka Iiraan, Mareykanku waxa uu wacad ku maray inuu weerari doono dowladda Iiraan. Dhanka kale, Iiraan ayaa waxay dhankeeda wacad ku martay inay duqeyn doonto dhammaan saldhigyada Mareykanka ee gobolka haddii xukuumadda Washington ay ka soo weerarto halkaasi. Diiba ay sheegeen xukuumadda Washington ay weerar kaga soo qaado dowladooda Iiraan saldhigyada ay ku leedahay Bariga Dhexe, gaar ahaan kuwa Khaliijka. Iiraan waxay ku hanjabtay inay weerari doonto saldhigyada militariga ee ku hareeraysan Khaliijka kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inay isu soo diyaarinayaan inay weeraraan dowladda Iiraan. Haddaba maxay tahay sababta dowladda Mareykanku ay saldhigyo uga samaysatay aaggaasi? Sideese ayaa uu ku bilaabay Mareykanku inuu ciidamo militari ka dhisto halkaas? Mareykanku waxa uu bilaabay inuu si weyn ugu lug yeesho arrimaha dalalka Khaliijka intii u dhaxaysay sanadii 1980-meeyadii, gaar ahaan intii u dhaxaysay sanadii 1980 ilaa 1988. kadib xilligii uu qarxay dagaalkii u dhaxeeyay dowladaha Iiraan iyo Ciraaq. Intii uu socday dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq, Sacuudi Carabiya, Kuwait iyo dalal kale oo daris ah ayaa taageeray dowladda Ciraaq. Sidoo kale, Mareykanka iyo dalal badan oo reer galbeed ah ayaa dhinac istaagay isla markaana taageero u muujiyay dowladda Ciraaq. Arrintaasi awgeed, Mareykanku wuxuu ballaariyay ka qaybgalka uu ku leeyahay arrimaha ka socda gobolka Bariga Dhexe, waxaana uu bilaabay inuu halkaasi soo dego isla markaana uu ka samaysto saldhigyo militari. Iiraan waxay samaysay mudaharaadyo iyo bayaano badan oo ay kaga soo horjeedo joogitaanka Mareykanka ee Khaliijka. Mas'uuliyiinta siyaasadda iyo militariga ee Iiraan waxay si joogta Mareykanka ugu eedeeyaan inuu qaraaraasi gelinayo Khaliijka iyo dalalka ku xeeran kadib markasta oo ay dhacdo dhibaato ama xiisad ka taagan gobolka. Ka qaybgalka Mareykanka ee gobolka kuma koobna oo keliya saldhigyo militari oo joogto ah, balse sidoo kale waxaa ka mid ah maraakiib dagaal, diyaaradaha wax xambaara iyo qalab kale oo militari oo uu faragelin kaga sameeyo Mareykanku aaggaasi. Tirada ciidamada iyo howlgalladooduba si joogto ah ayay isu bedbedelaan, isla markaana ma jiraan xisaab iyo tiro rasmi ah oo laga hayo. Dalka koowaad ee Mareykanku uu ku leeyahay saldhig waa dowladda Sacuudi Carabiya. Tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Sacuudi Carabiya sanadkii 2024 waxa ay gaadhay 2321 askari, sida uu sheegay aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Waxaa si dhow la shaqeeyaan dowladda Sacuudiga si ay u bixiyaan awoodaha difaaca hawada iyo gantaalada, isla markaana u taageeraan howlgallada diyaaradaha militariga ee Mareykanka. Dalalka sidoo kale uu ku leeyahay Mareykanku fadhiisan ciidan ee ku yaala Bariga Dhexe, gaar ahaan Khaliijka Carabta, ayaa waxaa ka mid ah dowladda Qatar, dowladda Baxrayn, dowladda Kuwait, Imaaraadka Carabta, Urdun iyo Turkiga oo ku leeyahay fadhiisimo militari isla markaana ay joogaan askar iyo sirdoonno uga howlgala dowladda Mareykanka aaggaasi si ay ula socdaan isla markaana u korjoogteeyaan siyaasadda iyo ammaanka Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamada Khaliijka.